Assalaamu calaykum. Haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo waa tee khudaarta aad maalin kasta isticmaashaa, waxaa suuragal ah inaad ilowdo ama aanad xasuusan yaanyada, balse yaanyada ama tamaandhada labada magacba waa loogu yeedhaaye. Waa khudaarta ugu soo saarka badan dunida, isla markaana ugu isticmaalka badan. Sidaa daraaddeed qoys kasta oo Soomaaliyeed waa uu isticmaalaa. Qof kasta oo ka tirsan qoys Soomaaliyeedna waxa uu isticmaalaa si toos ah ama si dadban. Haddaba daawade, maanta waxaan halkan idinku soo gudbinayaa faa'iidooyinka iyo waxtarka caafimaad ee Alle ku abuuray tamaandhada dabiiciga ah. Sidaa daraaddeed ku soo dhawaada channelka Nafaqa Channel. ugu horeyn daawade, qolofta yaanyada ama tamaandhada sida qolofta tufaaxa oo kale waxaa ka buuxda faa'iidooyin iyo fiitamiino badan oo jidhku u baahan yahay, waxayna ka difaacdaa xanuuno badan iyadoo oo weliba jidhka ka badbaadisa halista xanuunada wadnaha. Waxaa intaas oo dhan sabab u ah maadada cajiibka ee ku jirta yaanyada, taasoo loo yaqaano ama loogu yeedho lycopene. Sidaa daraaddeed daawade, maadadani kama shaqayso oo kaliya inay yaanyada midabkeeda ka dhigta casaan ama guduud. Waxa kale oo ay ku biirisaa yaanyada fiitamiino badan oo jidhka siiya faa'iidooyin badan oo caafimaad. Sidoo kalena maadadan loo yaqaano lycopene ee aynu ka hadlaynaa waxa ay ka mid tahay qoyska loo yaqaano carotenoid, waxaanay ka shaqaysaa kana hortagtaa dhaawac ku yimaada unugyada jidhka, isla markaana waxay ilaalisaa unugyada jidhka. Haddaba maadadan ayaa sidoo kalena gargaar ka geysata daaweynta kolestaroolka xun ee loo yaqaano cholesterol LDL, waxayna hoos u dhigtaa heerka kolestaroolkaas ee weliba dhiigga ku jira, iyadoo sidoo kale caawisa kana hortagta prostate cancer-ka. Sidoo kale maadadan lycopene ayaa waxa kaloo ay ku jirtaa oo laga helaa qaraha iyo labada nooc ee khudaarta ah, sida tan tooska loo cuniyo tan la karsado. Tusaale ahaan waxa ay ku jirtaa kaarooga iyo basbaaska guduudan ama casaanka ah, laakiin yaanyada ayaa ah khudaarta keliya ee asal ahaan maadadani qani ay ku tahay. Intaa kadib, yaanyada ayaa daawadayaal la cuni karaa iyada oo la shiilay ama la dubay ama maraq laga sameeyey, xataa iyada oo aan wax walwal ah laga qabin in la seego ama ay baabaado maadada lycopene ee yaanyada ku jirta, iyadoo maadadani ay faa'iidadeedu jirayso kadib xitaa haddii la shiilay ama la dubay yaanyada. Haddaba daawadayaal, intaa kadib yaanyadu gebi ahaanteeda waxa ay faa'iido u tahay jidhka bini'aadamka, waayo arrintu kuma koobno oo keliya qolofteeda oo keliya ee yaanyada waxaa gebi ahaan aan ku jirin waxa loo yaqaano calories oo ah tamarta cuntadu dhaliso, taasoo badankeedu waxyaabaha ay keento ay ugu horeyso buurnida iyo cayilka. Waxaana yaanyadu ay ka samaysan tahay 90% biyo. Intaa kadib, bal haddii aynu soo koobno faa'iidooyinka caafimaad ee yaanyada ku jira, yaanyadu waxa ay hoos u dhigtaa xanuunada wadnaha ku dhaca. Sidoo kalena waxaa laga helaa fiitamiino iyo nafaqooyin badan. Sidoo kalena waxa ay u wanaagsan tahay maqaarka jidhka. Sidoo kalena waxa ay ka hortagtaa lana dagaalantaa cudurka kansarka. Dhinaca kalena yaanyadu waxa ay wanaajisaa aragtida indhaha. Sidoo kalena waxa ay isu dheeli tirtaa sonkorta dhiigga ku jirta. Yaanyadu sidoo kale waxa ay u wanaagsan tahay timaha. Sidoo kalena yaanyadu waxa ay sare u qaadaa isla markaana hagaajisaa habdhiska dheefshiidka. Sidoo kalena yaanyadu waxa ay la dagaalantaa isla markaana ay daaweysaa xanuunada ama nabraha maqaarka ka soo baxa. Sidoo kalena yaanyadu waxa ay u wanaagsan tahay isla markaana sare u qaadaa caafimaadka lafaha. Yaanyadu waxa ay sidoo kale hodan ku tahay fiitamiin C-ga iyo kaalshiyamta iyo fiber-ka oo ah maadada fududeysa habdhiska dheefshiidka. Ugu dambeyntii daawada, yaanyada ayaa la ogaaday inay muhiim u tahay ragga, waayo daraasad dhawaan la baahiyey ayaa ku talinaysa in cunista yaanyada ay hoos u dhigi karto khatarta kansarka ku dhaca qanjidhada shahwadda ee ragga. Dhinaca kalena, ragga isticmaala xaddi ku filan oo tamaandho ama yaanyo ah isbuuc walba waxa ay hoos u dhigi karaan 20% kansarka haleela qanjidhada manida ee ragga. sidoo kalena
kansarka ku dhaca shahwadda ragga ayaa ah kansarka labaad ee sida aadka ah u haleela ragga. Ingiriiska oo kaliya 35,000 oo kiis ayaa laga helay, halka tiro kor u dhaafaysa 10,000 ay u geeriyoodeen ama u dhinteen kansarka manida ku dhaca. Sidaa daraaddeed daawade, khuburada kansarka ayaa ku talinaya joogtaynta cunto isku dheeli tiran taasoo ku badan tahay khudradda sida yaanyada oo kale, isla markaana ay ku yar yihiin hilibka iyo xaydhu.